iyadoo indhaha caalamku ay ku sii jeedaan dagaalka Gaza iyo xasuuqa bahalnimada ah ee ay ciidamada Israa'iil ku hayaan shacabka ku nool magaalada Gaza, ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo bilowgii dagaalka ka hadlay xaaladda Gaza ee muddada dheer go'doonsan waxa uu la barbar dhigay go'doomintii ay Naazigii Jarmalku ku soo rogeen magaalada Leningrad ee dagaalkii labaad ee dunida. Haddaba maxaan ka ognahay go'doominta magaalada Leningrad? Magacaygu waa Bashiir Cadow. Ku soo dhawaada warbixin cusub. bishii Juun 22 1941 ciidamada Jarmalku waxay weerareen dhulkii Sofiyeetka oo qayb ka ah howlgalkii loogu magac daray Barbarossa, kaasoo soo gabagabeeyay heshiis u dhaxeeyay labada dhinac. Si uu guuleysto dagaalka, Jarmalku waxa uu abaabulay ilaa 3 milyan oo askari, kuwaas oo dhulkii Sofiyeetka ka soo galay ama ka soo weeraray 3 jiho. Iyadoo howlgalkaasi uu socdo, ayaa ciidamada bartamaha iyo kuwa koonfureed waxa ay weerar ku qaadeen caasimadii Sofiyeetka ee Moscow iyo Ukraine oo markaas ahayd gobol ka tirsan Sofiyeetka. dhinaca kale, ciidamada Jarmalka ee ka baxay dhinaca waqooyi waxay sii mareen dalalka Lithuania, Latvia iyo Estonia iyagoo u jihaystay dhanka Leningrad. Magaalada Leningrad, Hitler waxa uu ku tilmaamay xilligaas inay tahay goobta lagama maarmaanka u ah wiiqidda awooddii midowga Soofiyeed si uu u burburiyo nidaamkii Bolsheviga. Marka laga soo tago inay magaalada ku noolaayeen ilaa 3 milyan oo shacab ah, sidoo kale magaaladan waxay xarun u ahayd ciidamada badda Soofiyeetka, waxaa kaloo ku yeelay boqolaal warshadood. Sababtaas darteed ayuuna Hitler ugu arkayay inay tahay magaalada labaad ee ugu muhiimsaneed magaalooyinkii Soofiyeetka marka laga yimaado Moscow. bilowgii duulaanka Jarmalku, dadka Leningrad waxay iska kaashadeen sidii ay u dhisi lahaayeen godad waaweyn iyo dhufeysyo adag si ay magaalada u difaacdaan. Sidoo kale, dadka magaalada oo aan markaas lahayn khibrad dagaal, isla markaasna aan haysan qalab militari oo ku filan, iyo qayb yar oo ka mid ah ciidamadii casaa ee Soofiyeetka oo iskaashanaya, ayaa dhowr jiho laga soo jebiyey, taasoo sababtay in ciidamadii Jarmalka ay qaybo ka mid ah magaalada Leningrad qabsadaan. bishii Agoosto 31 1941 Soofiyeetka waxay lumiyeen ama laga qabsaday magaalada Maga, taas oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee uu marayay khadka tareen ee soo galayay magaalada Leningrad. hal isbuuc kadibna ciidamadii Jarmalku waxay qabsadeen magaalada Schilksburg, sidaasna waxay ku jireen wadadii ugu muhiimsaneyd ee dhinaca dhulka ee saadka u soo marayay Leningrad. Haddana sidaas oo ay tahay, xaalkuna aad ugu sii xumaaday magaalada maadaama dhinac walba laga go'doomiyey. waxay haysatay waddo kale oo saadka u soo marayay, laakiin ahayd mid u dhaxaysay nolol iyo geeri. waddadan waxay ahayd harada Ladoga, balse mushkiladdu waxay ahayd in haradan ay ahayd mid u furan oo diyaaradaha dagaalka Jarmalku si fudud ku arki karaan doomaha iyo maraakiibta Ruushka. balse marka la gaaro xilliga qaboobaha waxay noqotaa baraf adag. Soofiyeetkuna iyagoo cimiladaas ka faa'iideysanaya ayay baabuur ku soo rari jireen raashin, daawooyin iyo hubka, kuwaasoo sidii laamiga oo kale usoo dulmari jiray haradan dusheeda maadaama ay baraf noqotay. inkastoo mararka qaar barafku uu dhalaalo, taasoo sababi jirtay in gawaari badan ku dhacaan, haddana duruufta kale ee haysatay shacabka iyo ciidamada Leningrad ayaa kasii dareed oo taas looma joojin jirin. bishii Sebtembar 8 1941 Jarmalku waxay dhamaystireen go'doomintii Leningrad kadib markii ciidamada Finland oo xulufo la ahaa Jarmalka ay ka soo weerareen magaalada dhinaca waqooyi. wixii markaas ka dambeeyay, ciidamada Jarmalku xoogooda oo dhan waxay isugu geeyeen sidii ay gudaha ugu geli lahaayeen magaalada una wada qabsan lahaayeen. balse markii ay taas ka quusteen, Hitler wuxuu soo saaray amar ah in magaalada lagu soo rogo xayiraad dhan walba si loogu qasbo inay isdhiibto. tan iyo bishii Sebtembar 9 1941 Jarmalku waxay bilaabeen ololo xoogan oo duqeyn ah oo ka dhan ah magaalada, kaas oo ay awoodeen in ay burburiyaan baqaaro badan oo dadka magaalada ku kaydsadeen raashinka iyo shidaalka. intii lagu jiray go'doominta, Jarmalku waxay ku tuureen Leningrad qiyaastii 75,000 oo madfac, balse shacabka iyo ciidamadii Soofiyeetka ee magaaladan difaacayay ayaa diiday inay isdhiibaan. sidoo kale, intii lagu guda jiray go'doominta muddada bilaha ah socotay, marinka harada Ladoga ee sidii aan horey idinkugu soo sheegnay barafka noqday ayaa magaalada siiyey xaddi yar oo cunto iyo shidaal ah. laakiin markii ay go'doomintu sii korortay, cuntada maalinlaha ah ayaa hoos u dhacday ilaa 125 garaam qofkiiba. xaaladan oo kale, tiro ka mid ah dadka Leningrad ayaa ka waaban waayay inay cunaan meydadka dadka dhintay. intii lagu jiray jiilaalka intii u dhaxaysay 1941 ilaa 1942 Leningrad waxay diiwaan gelisay dhimashada ugu yaraan 100,000 oo qof bishii. Leningrad waxay xaaladaas ku sii jirtay ilaa bilowgii 1943. muddadaas ciidanka cas ee Soofiyeeti waxay awoodeen inay magaalada u furaan waddo uu u soo maro saadka.
waxaana Moscow ugu yimid ilaa 5 milyan oo tan oo isugu jira raashin, daawo iyo shidaal. kadib qiyaastii 900 oo maalmood oo go'doomin ah, ciidanka cas ee Sofiyeetka ayaa awooday inay xoreeyaan magaalada oo dadkii ku noolaa la gaarsiiyey heer ay dhimashada ka doorbidaan inay ku noolaadaan magaaladan. marka loo eego qiyaasaha dhammaan maalmihii go'doominta ee magaalada Leningrad waxay goobjoog u ahayd dhimashada ugu yaraan 800,000 oo qof, kuwaas oo intooda badan u dhintay cunto la'aan.